wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka Macusleyda ay saacadii la soo dhaafay la wareegeen deegaanka Mubaarak ee gobolka Shabeellaha Hoose ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalla ka dhan ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ka fuliyay deegaanadaasi ayaa u suurta gashay inay gudaha u galaan deegaanka Mubaarak oo in muddo ay gacanta ku hayeen dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab xogaa ayaa intaas ku daraya in labada dhinac oo halkaas ku dhaxmaray dagaal kooban hase yeeshee markii dambe dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab halkaas iskaga baxeen waxaana u suurta gashay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya in si buuxda ay gacanta ugu dhigaan deegaanka Mubaarak iyo sidoo kale nawaaxigeeda ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la soo warinayaan in ay ku sii saqayaan tuulooyin kale oo gacanta ugu jira dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab kuwaas oo ay doonayaan inay ka xoreeyaan dawladda federaalka Soomaaliya ilaa haatan wax war ah oo faahfaahsan kama aysan soo saarin dagaalkan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay kula wareegeen deegaanka Mubaarak sidoo kale Al-Shabaab dhankooda ayaguna wax war ah kama aysan soo saarin siyaasha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waayihii ugu dambeeyay waxay howlgalla ka dhan ah dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab ay ka wadeen gobolka Shabeellaha Hoose ayaguna howlgalladaasi kula wareegay deegaano in muddo ay gacanta ku hayeen ururka Al-Shabaab